Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta mar kale soo dhawaada. Waxaan hor u sii wadi doonaa casharadeenii Microsoft Excel. Maanta waxaan qaadan doonaa casharkeeni 12aad. Casharka maanta waxaan ku baran doonaa markii la isticmaalayo dateska iyo termka sidee Microsoft Excel loogu isticmaalaa. Kusoo dhawow casharkeena maanta. Excelka markii la joogo oo aad rabtid inaad ka shaqaysiisid dateska iyo termka wuxuu ku ogolaan karaa inaad xisaabisid si automatic ah maalinta aad joogtid iyo maalmaha soo socda shaqooyinka ku yaal ay qabanaysid. Dimensionska markii aad tagno tusaale invoice tracking date record ayaa lagu siiyey kaasoo lagu sheegayo sida invoice loo record gareynayo. Qofkan invoice number 1 oo kale oo ah green grocery-ga waxaa la siiyey ama oo haysta waqti ah payment term kala siiyey 1 July loo dhiibay shaqadan 14 maalmood haysta leh due date-ka marka 14 maalmood kood la qaashan token naqaysa kadib remaining-ka dib u dhacay marka wuxuu sameynaa Excel-ka maalinta casharka aad duubeen ayuu soo qaadanaa date-ka August la jooga marka 17 maalmood ayuu dib uga dhacay macnaheeda sidaas ay noqonaysaa marka aragna practice-ka si aan ugu faahno si aad u fiican marka tusaale ahaan waxaa tahay freelancer project deadline-ka rabo inuu track gareeyo 10 project ayaad haysataa mid walba marka waqti uu bilaabanayo iyo termka lagu ogol yahay maalmaha ee lagu siiyey waxaa inaad soo saaran due date-ka maalinta la rabo inuu ugu dambeyso shaygaas la dhiibo haddii maalintaasi la ekaatay maalinta remand days ka dhiman ma ka soo daahnay mise waqti sax ayaan u gudbinay oo minus ayaa ku jirnaa ayaa ogaan karayna marka si aan u soo saarno marka due date-ka waxaan sameynaynaa halkan ayaa ku dhufanaynaa waxaan leenahay equal termka noola ogolaaday kaasoo lagu daray maalmaha aan haysano 12 August-na laga rabaa inaan bixino maadaama aan hayso 10 maalmood labada 10 maalmood haysta 12 August waa inuu due date-ka ugu dambeeya in laga rabo inaan project-kaas aan dhameyno marka si casharka hore ku soo barno outfill ayaa ku dhameystiri karnaa dhammaan waqtiga looga baahan yahay in aan ku soo dhameyno waqtiga ay bilowdeen dan markii aan u baahanahay remand days-ka ku haray minus ku jirta waqtiga ma ka dhacay mise waqti saxan ayaa taagan tahay kaliya waxaa sameynaynaa equal waxaan leenahay due date-ka oo laga jaray today marka Excel-kaaga aad soo furtid marka maalinta aad soo furtay date-keeda ayuu qaadan doonaa inaad waqti ku dhiman yahay inaad minus ku jirto oo due date-ka dhaaftay ayuu ku sheegi doonaa marka tusaale 2 August still term haysanaa oo maanta tahay bisha 11 maalmood ayaa ku harsan macnaheedu outfill marka isticmaalno muxuu sameyn doonaa deadline-kan kale intuu ka dhacay 5 la iska rabay almost hadda waxaa la marwayaa 1 August marka 7 maalin minus ku jirta kan 6 maalin ku hartay 16 maalin 33 maalin 21 maalin ku dhacay due date-kaaga soo waxaad tracking gareyn karaysaa marka maalmaha iyo halka ay ku joogaan marka today maanta marka aad rabtid inaad soo saartid kaliya waxaad sameynaysaa today bracket ku xir taariikhda maanta waa 1 August marka I hope inaad fahantay waa inuu casharkeena kale xiisa badan aad ayaa u mahadsantahay thank you